madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo deniga puntland ayaa dejiyey qorshe irbad kulaylisaa loogu dhufanayo soomaali heshiisa dunida lala heshiisa waana la isla meel dhigay saraakiil jagooyin muhiima ka qaban doona dowladda oo qaarkoodba hadda la magacaabay waxaana la qaybsaday jagooyin muhiima sida taliska booliska ganacsiga betroolka iyo weliba bangiga dhexe oo la filayo inuu soo daabici doono lacaga cusub ee shaqo soomaaliya ciidamo xoog leh oo iyagu ka qayb qaadan doona tababarada dibadda la dagaalanka argagixiska waana isbahaysiga dowladda puntland jubbaland iyo dowlad goboleedyadu niyajab ku yahay qatar iyo etoobiya oo naawilaysay in tareenka xasan sheekh la fashiliyo ciidamada geesiyaasha macwisleyda gobolka hiiraan ayaa wax la nacay ka dhigay oo fagaarayaasha dagaalka ku bahdilay argagixisada shabaab waxayna ugu galeen togagiya kaymaha shabaab ayaa ciilkii waxay kula duldhaceen baabuurtii gargaarka waday iyo ceelashii ay gubayaan iyo socotada ay laynayaan arrinkan ayaa muujinaya tabardarida iyo barbilowga dhammaadkii dhiigmiiradsada hubiyayaasha habeenkii shacabka muqdisho lagu salalinayo dilalka iyo argagaxgelinta ayaa looga gol leeyahay cabsigelinta shacabka madaxweyne xasan sheekh ayaana looga fadhiyaa inuu dubahabeen ku sameeyo laamaha ammaanka nisana u magacaabo fiqi oo si weyn khibrad ugu leh la dagaalanka shabaab waxaana lagu talinaya in xildhibaan saldhigyare loo magacaabo madaxa guddiga la dagaalanka shabaab maadaama uu horey uga sifeeyey gobolka mudug oo ay si weyn ugu xidadaysteen bilaal burshaawi oo ku magac dheera madaxweynaha tiktok ayaa dhaawacalisa lagu gaarsiiyey magaalada muqdisho kadib markii uu saacad ugu baaqay in la taageero dowladda xasan sheekh maxamuud bilaal oo muuqaal video kula hadlay taageerayaashiisa ayaa uga digay kooxaha mucaaradsan soomaali heshiisa dunida lala heshiisa waana tan videoga loo malaynayo inuu sababsaday waxaan halkan ku qabanayaa shir jaraa'id oo ku saabsan garab istaagga dowladda federaalka Soomaaliya waxaan farayaa dhammaan tiktokeriska ku nool gudaha dalka iyo dibaddiisa in si shuruud la'aan ah u garab istaagaan dowladda federaalka Soomaaliya oo madaxweynaha ka yahay xurmad leh madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa dowladda Soomaaliya la wadaagayaa in dowladda tiktok ee aan madaxweynaha ka ahay in ay si buuxda ula shaqeynayso xukuumadda cusub ee la soo dhisaayo waxaan shacabka Soomaaliyeed la wadaagayaa in dowladda tiktok ay tahay dowlad ay leeyihiin una adeegaysa danaha shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in xarakada shaydaaniga iyo kooxo adeega danaha dalka qatar ay ku soo daadiyeen baraha bulshada shakhsiyaad sheeganaya mansabyaan loo cimaamadin iyagoo baraha bulshada ka wada fudno iyo isku dir waxaana la sheegay ujeedka ugu weyn ee laga leeyahay arrinkan inay tahay in khalkhal bulshada kala shaki la abuuro qulubta bulshooyinka Soomaaliyeed si looga mashquuliyo dagaalka shabaab waxaana la sheegay kooxahan inay cabsi weyn ka qaadeen dagaalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku baaqay in lagu xoreeyo dalka Soomaaliya maalmaha soo aadan madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden oo gobolka Pennsylvania u tagay ololaha doorashooyinka bartamaha muddo xileedkiisa ayaa ku dhawaaqay inay ku go'an tahay in la xakameeyo iibka hubka sida qoryaha darandooriga u dhaca oo la saari doono xanibaada waxa kale oo qorsheynaya qoritaanka 100,000 oo sarkaal oo cusub oo boolis si loola dagaalo amni darrida markab sida qamadi laga keenay dalka Ukraine oo loo waday dalka Ethiopia ayaa ku soo xirtay dekedda Djibouti xilli ciidamada Tigreeg oo deegaanadooda laga jaray isgaarsiinta iyo gargaarku ay gubayaan deegaamadii canfartii xabashada dagaalo lagu hoobtay ayaana ka socda gudaha Ethiopia waxaana muuqatay in Ethiopia ay gashay jawi aan la saadaalin karin gadgadoonka goobaha dagaalka lamaane qaxooti ku ahaa dalka Australia ayaa ku guuleystay bakhtiyaar nasiib bedelay noloshoodii Aristide Esther oo dhashay dalka Burundi ayaa bishii June ciyaaray bakhtiyaar nasiibka qaranka Australia waxayna gateen tigidh mucjiso noqday waxayna ku guuleysteen 2 xidhmo $1 bilyan oo kaash iyo guri villa oo ku yaal gool loo dabaaltago Adelaide gurigan qaaliga ayaa qiimihiisa lagu qiyaasay $3 bilyan waxaana lamaanahan hadda lacag ugu deeqaan ururo samafal oo ka jira Australia oo dejiyo caawiyay markii dalka yimaadeen iyo ururo caawiya carruurta jireen ugu dambeynna bisad Soomaaliya ayaa fagaarayaasha caalamka qabsatay sanadihii ugu dambeeyay kuna guuleysatay tankarka makulaalaha ama bisadaha caalamka Somali Kate ayaa lagu arkay markii ugu horeysay goobaha lagu dhaqo bisadaha ee Mareykanka waxaana hadda fikta sare uga jirta tartanka makulaalaha waxaana la sheegay in loogu jecel yahay bisad Soomaali maadaama ay ciyaar badan tahay firfircooni dheer iyo qiimahooda oo mid qaali ah suuqa kala iibsiga bisadaha layko la wadaaga saxaabtaada si aad ula socoto wararka cadceed television shanalka qisooyinka iyo mucjisooyinka caalamka